halka aan ku sugannahay oo aan idin kala soo hadlayno waa barxadda jaamacadda Facaweyn ee Sheekh Daado Culusow oo ku yaal xaafadda Gaawagoday ee degmada Dharkiinle ee magaalada Muqdisho sida aad kadaashida ka maqashaan galabta halkan waxaa ka socdo banaabaxa siyaaradii Allah u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdi Cusmaan oo ahaa caalim umrigiisa ku bixiyay fidinta iyo qidmaanta diinta Islaamka sidoo kale ahaa caalim mujaahid ah oo ku jihada guud ahaan cid kasta oo ku soo xad gudubta dhulka Soomaaliya iyo diinta Islaamka sidoo kale sheekhu wuxuu ahaa caalim u gargaara agoonta iyo dadka danta yar waxaana sanad kasta xilligan oo kale lagu xus halkan galabta banaabaxa waxaa isku yimid kumanaan ka kala socda qaybaha kala duwan ee dariiqada Axmadiya Kaaraan Raxmaaniya kuwa oo iskaga yimid 17 degmo ee Koonfur Banaadir kuwa oo iskugu jira mashaa'iq iyo xir waxayna galabta sida aragta halkan ay ku oogayaan dikriga Alle oo sababkiisa u niyeysanayaan Alle ha u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdi Cusmaan inta uu socod banaabaxa waxaynu la hadalnay qaar kamid ah mashaa'iqdii ka soo qayb gashay banaabaxa iyagoo ka sheegay taariikhdii iyo wanaagii Allah u naxariistay Sheekh Cabdi Cusmaan qofka hadduu diinta ku dadaalo oo xuskiisa ilaahayna uu badiyo waa ilaahay baa jeclaanayo ilaahay markuu jeclaadana jibriil baa uu dhawaaqayaa wuxuu leeyahay jibriilow hebel ayaan jeclaaday ya jeclaaw sheekhu meelo kala duwan ayuu ka fuliyay dacwada iyo diinka laakiin markii sidambe sheekha waxa saldhig u aheeday magaalada Baardheere la yiraahdo halkaas ayuu marka waqtigiisii iyo juhdigiisii iyo dadaalkiisii ku bixiyay fidinta diinta Sheekh Cabdi Cusmaan wuxuu ahaa sheekh oo caalim ah wuxuu isku darsaday sheekha inuu ahaa sheekhu dariiqati wal cilmi in qofka uu isku helo sheekh oo dariiqada bixiya haddana cilmiga dadka bara waa wax oo naadir ah marka sheekha wuxuu ahaa sheekh labada kulansaday sheekha inta waxa u dheereed inuu ahaa sheekh oo saa'im ah oo maalinkii oo dhan sooman habeenkii markii la gaarana wuxuu ku afuri jiray waxa la yiraahdo qoonada sheekhu wuxuu ahaa sheekh oo zaahid ah oo adduunyada ka jeestay oo adduunya aan waxba aan ku falaynin Saadam Cabdulla Siyaad warbaahinta qarka Soomaaliyeed barxadda weyn ee jaamacadda Sheekh Daado Culusow xaafadda Gaawagoday degmada Dharkiinle magaalada Muqdisho